asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad aa u mahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago xalay intii la jiifay wadanka venezuela waa laga adeegtay maraykanku waxa uu ku qaaday duqeymo dhinaca cirka ah waxaana madaxweyne trump uu sheegaba uu bartiisa true social uu kusoo qoray in madaxweynihii wadanka venezuela nicolas maduro iyo xaaskiisii gacanta ay dowladda maraykanku ay kusoo dhigtay maraykankana loo soo wado durbaba maraykankuna dacwado ayuu kusoo oogay madaxweynaha wadankaasi venezuela haddaba arrintan sidee halkan ku gaartay bilihii lasoo dhaafay maxay ahayd waxyaabaha madaxweyne trump uu sameynayay uu doonayay in isbedel dhinaca siyaasadda ah uu uga sameeyo wadanka venezuela arrintan sharci ma tahay maadaama kongareska uusan ogolaasho ka helin marka madaxweyne maraykan ama dowladda maraykanku wadan kale ay weerarayso waa in kongareska uu ogolaadaa marka arrintan hadda su-aalo fara badan ayaa ka taagan duqeymaha doomo uu leeyahay trump daroogo ayay wadeen oo bilihii lasoo dhaafay ilaa iyo bishii 9 ee sebtembar uu duqeynayeyna imise qof ayaa ku geeriyootay arrimahaasi oo idil ayaan rabaa bal inaan idinla wadaago madaxweyne trump ayaa waxa uu laslab ku dhowaad 2 saac iyo bar ka hor bartiisa true socialka uu ku xaqiijiyey in maraykanku gacanta uu kusoo dhigay madaxweynihii wadanka venezuela nicolas maduro iyo weliba xaaskiisa waxaa la leeyahay howlgalkan waxaa fuliyey ciidamo qaas ah iyagoo jiifa sariirahooda ayaana gacanta lagu soo dhigay madaxweynihii wadanka venezuela nicolas maduro iyo weliba xaaskiisa ciidamadan ka hor inta aysan gelin wadanka venezuela ilaa iyo 5 duqeyn oo kala duwan ayaa ciidamada maraykanku uu ka geystay gudaha wadankaasi venezuela 3 ka midana waxa uu ka geystay caasimada wadankaasi ee Caracas dad ayaa ku geeriyooday kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen ayaa la leeyahay hadda madaxweyne ku-xigeenkii wadankaasi venezuela waxa ay leedahay waxaan doonaynaa in la tuso in madaxweynihii hore sida hadda uu noqonayo uu nool yahay ama in uu dhintay wasiirka gaashaandhigga ee wadankaasi venezuelana wuxuu yiri maraykanka waan ka aargoosanayna haddaba madaxweyne trump ilaa iyo markii xilka uu la wareegay waxa uu isku dayay in venezuela uu ka sameeyo wax la yiraahdo regime change in maamulkan uu hogaaminayo maduro meesha laga saaro oo maamul kale oo maraykanku uu wato uu taageersan yahay in wadankaasi venezuela laga sameeyo ilaa iyo 15,000 oo kamid ah ciidamada maraykanka ayaa waxa uu geeyey meelaha xeebaha ka agdhow wadankaasi venezuela oo maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal wato Panama ayaa kamid ah meelaha diyaaradaha maraykanka ee dagaalka ay fadhiyeen iyadoo laga cabsi qabay inuu dagaal u qarxo xubnaha kongareska oo labada dhinac ee republikaanka iyo dimuqraadiyiinta arrintan waa ay dalacaynayaan maantana su'aalo fara badan ayaa ka soo baxaya waxa ay leeyihiin in wadan kale maraykanku iska weeraro iyadoo uusan ogolaasho ka helin kongareska arrintaasi waa sharci darro taageerayaasha trump ee maagana iyagu ma doonayeen in maraykanku wadan kale uu duulaanka ku qaado oo waxay dhahayeen xisbiga republikaanku waa xisbi nabadeed islamarkaana waxaa loo baahan yahay inuu wadan kale uusan dagaal ku qaadin trump waa kii ku faanayay ilaa iyo 8 dagaal oo kala duwan ayaan xaliyay laakiin in isagu wadan kale uu dagaal ku qaado ayaa hadda su'aalo fara badan ay ka taagan yihiin trump wuxuu ku eedeynayay marka madaxweynaha wadanka venezuela waxyaabaha uu ku eedeynayay waxaa ka mid ah in kooxaha daroogada ka ganacsada uu xiriir la leeyahay madaxweynaha venezuela isla markiiba hadda markii lasoo qabtay markab dagaal ayaa lasoo saaray oo maraykanku uu leeyahay new york ayaana lagu soo wadaa maraykanku durbaba waxa uu kusoo eedeeyey dacwado ay ka mid yihiin in daroogo iyo sidoo kalena hub sharci darro ah in uu ka ganacsanayo waxa ay leeyihiin maraykanku madaxweynaha venezuela waxa uu xiriir la leeyahay kooxaha draagiska iyo hubka sharci darrada ah ka ganacsada arrintan waxa ay kusoo beegmaysaa marka iyadoo maalnimadii shalay oo jimcaha ahayd madaxweynaha venezuela uu yiri wadahadal nabadeed ayaan diyaar u ahay oo dagaal diyaar uma ah marka arrintaas ayay kusoo beegmaysaa hadda trump waraysi kooban oo uu siiyey wargeyska new york times ayaa waxa uu ku sheegay madaxweynuhu waxa uu ku sugan yahay qasrigiisa Mar-a-Lago maadaama fasaxii sanadka cusub weli aan laga soo laabanin marka shir jaraa'id ayaa la filayaa in uu goordhow qabto bartiisa true socialkana qoraalkan ayuu ku soo qoray uu leeyahay maraykanka waxa ay si guuli ku jirtay ay u qaadeen weeraro ay ka fuliyeen wadanka venezuela iyo weliba hogaamiyahooda waxaana la soo qabtay ayuu yiri madaxweyne nicolas maduro iyo weliba xaaskiisa waxaana laga soo duuliyay gudaha wadankaasi venezuela oo waba laga soo qaadaba waxa
howlgalkan fuliyey ayuu leeyahay ciidamada Mareykanka isagoo sheegay in faahfaahinno dheeraada shir jaraa'id oo uu qaban doono uu qasrigiisa Mar-a-Lago 5 saac oo subaxnimo uu ku qaban doono in uu ku faahfaahin doono marka waxa uu leeyahay waa idinka mahadcelinaya dareenkiina arrintan la xiriira madaxweyne Donald J Trump waa uu ku soo gabagabeeyay marka waxa leeyahay shirkaasi jaraa'id uu qaban doono ayuu ku faahfaahin doonaa laakiin su'aalo fara badan ayaa ka taagan hadaba arrintan maxaa ka horeeya marka bishii September 2 Mareykanku waxa uu bilaabay duqeymo dhinaca cirka ah oo u geysanayo doomaha badaha Caribbean-ka maraya iyo waliba bariga badda Pacific ilaa iyo 35 weerar oo duqeymo cirka ah ayaa doomahaasi lagu qaaday 115 qof ayaana lagu dilay waxa uu leeyahay doomahaasi daroogo kala duwan ay sideen Mareykanka ayna ku soo wajahnaan waxaana la doonayaa in dadka Mareykanka lagu waxyeeleeyo daroogadaasi marka Mareykanka ay soo gasho kadibna dadka Mareykanka ayaa isticmaalaya waa ayna ku geeriyoonayaan sanad kasta dad fara badan ayaa Mareykanka daroogooyinkaasi uga geeriyooda marka Trump wuxuu leeyahay sidaas aan uga hortago ayaan duqeymahaasi u sameeyay iyaga nafsad ahaantooda su'aalo fara badan ayaa ka taagan yaa u ogolaaday madaxweynaha in meel ka baxsan wadankiisa duqeymo uu ka fuliyay Congress-ka isagoona sidoo kale ogolaasho aan ka haysanin Mareykanku ilaa hadda waxa la leeyahay xitaa waxaa jiray mar dad inta ay badbaadeen in duqeyn labaad loo celiyay oo lagu dilay qof isdhiibay oo doontii uu saarnaa la burburiyay in mar labaad la duqeeyana sidoo kale waa sharci darro marka arrintaasina sidoo kale su'aalo kale ayaa ka taagnaa marka Trump waxay u muuqataa in isagu sharciga uu gacmihiisa ku qaatay marka hadda uu xalay duqeeyay caasimadda wadanka Venezuela ee Caracas oo ilaa 5 duqeyn oo kala duwan oo xitaa goobo military ay ku jiraan la duqeeyay iyo markii doomaha kala duwanba oo badahaasi marayay duqeynta uu la eeganayay Trump marka waraysi kooban uu siiyay TV-ga uu jecel yahay Fox News iyo waliba New York Times waxa uu ku sheegay in la soo qabtay madaxweynihii wadankaasi Venezuela iyo xaaskiisii isla markaana sidoo kalena hadda Mareykanka ay ku soo wajahan yihiin waraysigiisa waxa uu yiri oo Fox and Friends oo siiyay isla waliba qadka telefoonka uu ku siiyay waxa uu sheegay in ciidamo kala duwan ay ka qayb qaateen howlgalkaasi waxaanu yiri waan daawanayay waad ogtihiin ayuu yiri inaan jeclahay inaan daawado television showska marka sidaas oo kale ayaan si toos ah u daawanay marka ciidamada Mareykanku markay howlgal sameynayaan madaxweynaha waxa jirta maadaama ciidamada kaamarooyin ay u xiran yihiin in si toos ah ula socdo howlgalka markii hadda in la dilayay Osama bin Laden oo kale Obama waa uu la socday marka sidaas oo kale ayuu si toos ah madaxweynuhu ula socdaa marka Trump waxa uu leeyahay si toos ah ayaan u daawanayay xawaaraha iyo waliba dardarta uu ku socday qalalaasaha oo laha waxayna ahayd uu leeyahay arrin aan ku raaxaysanaya sida isagu uu hadalka u dhigay The team did an incredible job. They rehearsed and practiced like nobody's ever seen. And I was told by real military people that there's no other country on earth that can do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. And if you would have seen the speed, the violence, you know, they say that, the speed, the violence, they use that term. It was an amazing thing, an amazing job that these people did. laakiin waa uu xaqiijiyay in madaxweynihii Venezuela gacanta lagu soo dhigay iyo xaaskiisa isla markaana sidoo kalena waa maxaa ka dambeyn doona marka maadaama la soo qabto waxaan ogeyn sidoo kale bishii soo dhaafay in maraakiibta shidaalka qaada oo ilaa iyo 2 milyan oo fuusto oo shidaal ciriina siday in Mareykanku uu gacanta uu ku soo dhigo hadda gobolka Texas la keenay markabkaasi oo shidaalka qaada waxaana uu Mareykanku uu sheegay in shidaal sharci darro uu waday wadanka Iran maadaama Venezuela ay cunaqabateen oo Mareykanku saaray waxay leeyihiin si sharci darro ah shidaalkooda Iran iyo Cuba iyo meelo kala duwan uga iibin jiray marka markabkaasina gacanta ayay ku soo dhigeen waliba ilaa iyo 2 markab inay yihiin ayaan jeclahay marka Trump shirkiisa jaraa'id ayaa la sugi doonaa laakiin xubnaha Congress-ka oo hadda dib u soo laabanaya Isniinta waxay u muuqataa in su'aalo fara badan arrintan ay ka qabi doonaan iyo awoodda u siiyay madaxweynuhu kaliya inuu sharciga gacanta ku qaato isla markaana wadan kale uu weeraro madaxweynahoodii oo noolna gacanta uu ku soo dhigo Congress waxay ka yiraahdaan waa la arki doonaa iyo Trump waxa uu isku difaaciyo waliba maamulkiisa waxyaabaha kale ee soo kordhay stay tuned insha Allah waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waroodin la sida iyo nabadgelyo